socdaalkani ay ku yimaadeen magaalada Boorama wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Soomaaliland Boosmira Maxamed iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuur Jibriil ayaa waxa uu daarnaa mid ay ugu kuurgalayeen xalka ay marayso tartanka kubadda cagta kooxaha heerka labaad ama loo yaqaan Zero Bida ee ka socda garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama. Wafdigani ayaa markii ay garoonka soo galeen waxa warbixin guud oo ku saabsan habsami u socodka tartankani iyo cadadka kooxaha ka soo qayb galay ayaa waxa warbixin guud ka siiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya. maanta waxaanu taaganahay garoonkii kubadda cagta ee gobolka degmada Boorama Xaaji Daahir Stadium oo ay ka socoto tartankii ciyaaraha ee kooxaha heerka labaad oo ah 30 kooxood ilaa haddana si wanaagsan u socdo habsami ah waxa loo gudbayaa wareegii labaad oo hadda socda oo gabagabo maraya tartankan tartan soo socday muddo 16 cisha waxaan isleenahay si rajale inuu noogu dhamaado. dhankiisa waxa isaguna ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Awdal Xasan Saciid Dheeldheel waxaana uu sheegay saacadul wasiir ku soo dhawow gobolka Awdal waxa maaragtay koobkan aan ku bilownay oo aan soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha waxa aan jaaj gareynay oo aan maaragtay awood saaray dhalinyarta koobka ka soo qayb gashay oo aan maanta u qabanay koob Serie B oo ka kooban 30 kooxood oo Serie B oo maraya wareegii saddexaad kooxdii ugu dambeysayna ay maanta ciyaarayso. sidoo kale waxa isaguna hadalka ka daba qaatay agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuur Jibriil waxana uu yiri waxa farxad maanta noo ah inaan ka soo qayb galo tartankan oo wasiirku garwadeenu yahay sidii loo indhayn lahaa ciyaaraha ka socda Boorama ma gobolka Awdalba kooxahan Serie B ee 30 oo la kala eegay mihnadooda ciyaarood halkay taagan tahay qolo walba in magaranayay meeqaamkay ku habooyin la geeyo insha Allah bismillaah kareem wuxuu noogu dhamaan doonaa guul kale kubaddu waa barcad iyo barmadow waa la kala badiyaa waxaan ugu talagalnay in kubaddu inay isbarasho iyo isdhexgal iyo inay dhalinyaradu kula dagaalamaan tahriibka iyo muqaadaraadka iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhaqankeena wanaagsaneyn. ugu dambeyntii waxa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Soomaaliland Boosmira Maxamed waxana uu tilmaamay siyaasadda nimanka dawladda cusub inay meel walba oo dhalinyaro joogto loogu tago lana dhiirigeliyo insha Allah qaybtii hore dhamaatay baanu nimi ciyaarta waa final wareegyada dambena markay idin bilaabmaan finalka ugu dambeeya waanu ka soo qayb galeynaa waanu diimanaynaa waxa la doonayaa sportsku inuu noqdo lafdhabarta isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland oo dhan hadii la yiraahdo meel walba waxaan doonaynaa inuu saa dhalinyaradeenna ay isku wada garab taagno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ay ilaa imika ku socoto ciyaartu. Absalaan Saaha, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorama.